الله عليكم كلنتو وعن oo wanaagsan idilkiinba meel kasto dunida ka joogtaan iyo si walba xog baahiyeena idin soo gaarayo halkani waa Bahweyn Media kuna soo dhawaada barnaamijkii xog iyo ogaal qodobada aan maanta idin tabin doona hadduu rabbi idno waxa ay kala yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la filayo inuu u safro dalka Turkiga أحمد مدوبه جبلان يسعيدني قبلان أو قرشه هرله ماجن محاك الدرا ورك الشيء الجنرال كقضية دتكيسة مدح مرتي وحودة معمول كهير شبل إن وده هذا الأصعد أخبارات كعالم كواحد كل مغلي دونتان كولان كلا بذا مدح وين وأمريكان كيروش لكن دقيستي وليجا مكعبودي قب فجارة هجامية كميدا كوا دنيا أقسامين تبدن oo maradii ka dhacday maradii baa ka dhacday talo waa kuma hogaamiyaasi xog iyo ogaal ayaad ku dhigeysan doontaan sheekada xiiso leh dhageystayaal u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan dabkii baxaya dab lagu qabsadaayo warar sugan oo dhexdhexaad ah Bahweyn Media saaxiibka ka dhigo waa maalinimo 16 Juun 2021 qodobada ugu horeeya xog iyo ogaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid noqday madaxda lagu casuumay shir la sheegay inuu ka dhacayo dalka Turkiga madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa ku soo daray liiska madaxda shirkaasi ka qaybgalaya madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in toddobaadkan uu shir uga qaybgali doono magaalada Antalya ee dalka Turkiga madaxweynaha ayaa ka qaybgali doona shir la sheegay inuu yahay madasha loo yaqaan madasha diblomaasiyadda Antalya aan ku siqay labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland ayaa wada qorshe cusub kuna saabsan qaabka ay doorashada dalka loo wajahayo Axmed Madoobe iyo Siciidani ayaa doonaya in qaabka doorashada dalka loo weeciyo qaabkii doorashadii 2016 kaasoo ka hor imaanaya heshiiskii 17 September iyo 27 May lagu saxiixay magaalada Muqdisho labada madaxweyne waa Jubbaland iyo Puntland ayaa doonaya in ergada doorashooyinka laga dhigo 51 xubnood arintaasi ayaa la sheegay in ay noqon doonto caqabad hor leh oo ku timaada heshiisyadii iyo geedi socodkii doorashooyinka dhanka kale warar la isla dhaxmarayo muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in wada hadal uu u socdo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed iyo generaalka ay isku beesha yihiin ee diidana Hirshabelle General Abuukar Xaaji Warsame Xuud Bahweyn Media oo arintaasi si gaar ah xaqiijinteeda iskugu howshay ayaa ugu dambeyn soo heshay in uusan jirin wax wada hadal ah oo u dhaxeeya labadaasi mas'uul shacabka gobolka Hiiraan iyo xooga kacdoonka gobolkaasi Hiiraan ayaa weli ka mideysan diidmada Hirshabelle dhanka kale waxaa sii kordhaya abaabulka ciidan ee jabhadda uu hogaamiyo General Abuukar Xaaji Xuud iyadoo loo aaneynayo arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan degmada Beledweyne arrintan ayaa u muuqata mid caqabad ku noqon doonta doorashooyinka dalka haddaan xal dhab ah laga gaarin halka tabintaasi idinkaga imaanayso waa Bahweyn Media waxaadna dhageysanaysaan qaybihii ugu dambeeyay ee xog iyo ogaal akhbaaraadka caalamka aan ku siqay dalka Ukraine oo lagu daray wadamada gaashaanbuurta NATO arintaasina waxa galaankan xoogan u galay madaxweynaha Mareykanka waa Joe Biden inkastoo warmurtiyeedka kaliya ee wadamadaasi gaashaanbuurta NATO lagu sheegay arinkaasi kadib kulankii u soo gabagaboway wadamada gaashaanbuurta NATO kulanka labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Ruushka ayaa isku diyaarinaya labada hogaamiye goor sii horeysay ayaa la sheegay in madaxweynaha Joe Biden waa madaxweynaha Mareykanka uu halkaas ka sheegi doono hadallo aad u waaweyn Joe Biden ayaa la sheegay in uu siin doono qadka gaduudan asagoona tilmaamay in uusan Putin ka soo gudbi karin wuxuuna og yahay in Putin uu yahay nin adag Biden ayaa sidaa yiri sidoo kale Biden oo hadalkiisii wata wuxuu yiri Putin waa nin adag oo ka kan marka ay timaado doodaha iyo iska dhicinta laakiin Biden ayaa meesha ka saarin in uu haysto qodobo xakameyn ah wuxuuna sheegay in uu siin doono qodobada uusan ka gudbi karin wuxuuna sheegay in faragelinta joogtada ah ee Ukraine aanan la isaga hari doonin ugu dambeynse dhageysta weliga ma ku ceebooday goob fagaara ah hogaamiye kamid ah kuwa dunida ugu saameynta badan oo maradii ka dhacday waxaan maqli jiray Allah u ceebteena astur talo waa ayo ninka madaxweynihii ama ra'iisul wasaarihii hore ee
Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku ceeboobay goob fagaara ah asaga oo ka qayb galayay shirkii aqalka baarlamaanka dalkaasi. Netanyahu ayaa fadhiistay kursi aanan loogu talagelin. kursigaasi waxa uu ku fadhiyay 12 sano. waa uu khaldamay. xili jeclida marka ay meel xun ku gaarsiiso ama ay madax ka marto ceebtaas oo kale ayaa ku soo hoyata. kursigii ayuu ku fadhiistay kadib baa la saar loogama harin inta laga daba tagay baa kursigii laga soo qabtay, waa laga soo kiciyay, waxaana lagu fadhiisiyay ninka doorashada kaga guuleystay ee Naftali Bennett waa hogaamiye, waa siyaasi ay wadaniyada madax martay, waana ninka hadda loo dhaariyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Israa'iil. Netanyahu maradii baa ka dhacdo kursi uusan lahayn buu fadhiistay asagoo ismooda 12 sano oo kursiga ku fadhiyay, balse inta looga daba tagay baa laga soo qabtay. intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena xoog iyo ogaal. inta aan barnaamij mid lamid ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.